Gavanaha ismaamulka Mandera Maxamed Aadan Khaliif ayaa maanta si rasmi ah u furay golaha deegaanka saddexaad ee dowlad goboleedka Mandera. Waxaa kulankaasi soo xaadiray gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xubnaha kale ee golaha wakiilada. Rasaabka ayaa khudbad ka horjeediyay mudanayaasha golaha deegaanka Mandera oo soo xaadiray kulankan. Gavanaha ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ka taagan maamulkani Mandera. Waxa uu sheegay in maamulkiisa uu wax ka qaban doono abaaraha ka jira deegaanada maamulka isla markaana lacago cadaan ah uu ugu deeqi doono shacabka abaaruhu ay saameeyeen ee ku sugan deegaanada kala duwan ee countiga. Dhinaca kale waxa uu sheegay in ku dhawaad 20,000 oo qoys oo danyara ay ka faa'iideysan doonaan adeegyo caafimaad oo bilaasha ayagoo adeegsanaya kaararka caymiska caafimaadka ee NHIF. Kadib khudbadii ka jeediyay baarlamaanka hoose ee Mandera, Rasaabka ayaa saxaafadda kula hadlay afaafka hore ee xarunta golaha deegaanka. Waxa uu sheegay in dhowaan uu soo magacaabi doono golihiisa electionkii marka laga soo gudbo waa in la furo maalin rasmiga oo shaqada baarlamaanka la bilaabay. maanta waxaan u imaan meeshan aan baarlamaankii county Mandera sidii rasmi ahaan aan u furno oo sharci ahaanna waa governor inuu bixiyo adresska inuu la hadlo reer Mandera iyo mudanayaasha la soo doortay sidaas. arrimihii waa la socoteen waa wasiiriintii iyo chief officers saddex wiig oo soo dhaafay aan gazetka ku soo saarnay applicationkii aan hadda qaadayna tii wasiiriinta jimcada noo dhamaatay. hadda insha Allah saddex bari gudaheeda waxaan rabaa inaan ku soo gudbino baarlamaanka sida ay u fiiriyaan oo u beetigrayaan chief officer shaqadaas hawshaas waa iska leh Public Service Commission. applicationkii maanta la ciray shaqadooda way bilaabi doonaan. taasna labada usbuuc gudaheed waxaan rabnaa inay soo gebgabeeyaan markaasna dadkii oo aan soo qaadnay aan baarlamaanka soo gudbin doono insha Allah. Dhinaca kale qaar ka mid ah golaha wakiilada ismaamulka Mandera ayaa ka hadlay khudbadda maanta halkaas uu ka jeediyay Gavana Maxamed Aadan Khaliif. Speechka Gavana zaid u fiicnay waxyaalo badan ayuu taabtay oo number 1 ka tahay arrimaha abaaraha iyo waxyaalihii uu ka qaban lahaay dawladdiisa ay ka qabanaysay arrimaha abaaraha ama ay ka qaban haysa uu ka hadlay. waxyaalaha kale uu taabtay waxa kamid ah in 20,000 oo qoys maxaan ku dhahaa caawimaad oo NHIF la gelin doono qoysaskaas oo maaragtay qoysaska liidan oo countiga 20,000 oo qoys in caymiska NHIF la gelin doono ka hadlay. wuxuu ka hadlay bishii koobaad oo sanadka soo socdo inay bazari ama lacag feeska ardayda secondary akhrisanayeen ayuu maaragtay wax ka qabanaya uu ka hadlay. waxa kale uu ka hadlay oo zaid mahad ugu celiyay nabadda maaragtay aan maaragtay ka jirta countigeena khaasatan nabadda u dhaxaysa beelooyinka sidii doorashada nabadda ugu dhacday ayuu ka hadlay. haddii aad fiirisid speechka Gavanaha zaid u fiicnay insha Allah taala baarlamaanku hor yeela afarta fadhiyo soo socdana waa laga doodi doonaa laakiin waxaan aaminsanahay inuu wax fiican uu soo bandhigay Gavanaha. Magacayga Abdullahi Ibrahim MC laga soo doortay Mandera. Gavanaha maanta wuxuu furiyay assembly mashruuc farmaan oo kaan mashruucaha soo dhaweyn oo qaad maanta ay dabaalaha reer Mandera abaar baxsanaya haysa abaarta oo qaadin oo development oo ka hadlay sida shaqeynaya plan dadweynaha reer Mandera expectation badan ay leeyihiin Gavanaha inuu hadaf fiican ka qaban maadaama waxay rabaan inuu la shaqeeyo Gavanaha maanta wuxuu kala ka hadlay shaqaalaha county inuu badin doono oo si wanaagsan قرد السكر سوينا في القادم والمقدرة عدالة وشقيق بدك لنا وحنا إلى هذا الشيء سنة خلاص إنسان قبل السبيكر فرك أنا كنا ضد ما دام صدرني أنا نلش قيم دور أيام مدينة بدك الله أمرت الله كين الله يسوع عليه دولة national county government NGOs بدال كل أمارها إلى هو بلا يسمي سنة كشكل دور. Ibrahim Nuru Abdirahman Ibrahim Yare warbaahinta Dawa countiga Mandera.